ساودا أركتان BTC وحان جوغا 12 بلاد أو معناه هذا هل سنة واي waxaan rabnaa inaan ogaano meeshan ka nimaanay iyo meeshan u socono markii breakdown la sameeynayo waa u baahan tahay inaad ogaatid guud ahaan intaas oo dhan ka hor intaana bilaabin hal mar codkayga fasiix waa la maqlaa Soomaan yes well done idinkana inta codkayga waa maqashaan oo maleynaya qaybtan oo dadkan space kana la saaran okay waxa aragnaa BTC laga soo bilaabo January 15 ilaa up to now inay ku soo socotay buy ay sameeynaysa higher high higher low higher high higher low haddana higher high inuu sii socdo علشان برتاني كسو بلاوت low high kadibna waxay sameysay higher low kadibna high ugu dambeeyay jabsatay waxay ku jibisay badi marba hadii volume lagu jibiyo continuation isay muujinay kadibna hadan retest ya la soo sameeyay imbalance gana la soo buuxiyay hadana waa la socdaa mar labaad waxa lagu jibiyay aragtaan badi inta fiiri history meeshuu ka soo bilaawday break of structure laha waa boss markii la jibiyay kadib badi ya lagu jibiyay week lagu ma jibin kadib suuq muxuu sameeyay imbalance gana soo buuxiyay mar labaad high ku xigay waa kana isagana oo mar labaad la jibiyay isagana waxa lagu jibiyay qaab badi ahaan ayaa lagu jibiyay boss kale kadib hadda high ugu dambeeyo waa wax hadda sii socdo sanadkan candlekan waa sanadka hadda furan candleka sii socdo high uu sareeyay marka waa kana almost isaga qaaday hadii aad rabtaan inaad si fiican u aragtaan zoomka ay idin soo dhihi doona si clear ah u arki doontaan high waa kana candleki ugu dambeeyay sanadkii hore waaye oo 2024 candle 2025 waaye I think so hoosa ka arki kartaan high isaga waxa way qaaday almost waa midka hadda lagu sii socdo marka sanadkan ugu socda hadda almost 6 bilood dhamaatay bishii lixaad I think so bishii lixaad la gala sorry kadib wuxuu ku dhamaan doono waa isla arkaynaa waxaan rabnaa marka qaab noocaas inaan isku xir u sameeyno aan isku xirno waxaa meeshan nooga muuqata marka almost meeshan inuu yaalo imbalance sidii sanadyadii hore la soo dhaafo kale areadan mar walba suuqa dhaqaaq samay break of structure uu dhaco waxa laga tagi jiray imbalance waxa lahaa zone-kan inta kaaga muuqdo almost meeshaas waxa ka muuqata marka in la soo buuxiyay oo candle sell uu soo dhacay kadib suuqa uu buy bilaabay sidoo kale taariikhdii mid la mid oo kale meeshan waxa kaaga muuqanayso imbalance inay meeshan ay jirto okay oo macnaheedu I think so 2026 may noqon doontaa 2027 may noqon doontaa nobody knows laakiin structure ahaan mar walba waxa qasab ah imbalance-gan in la soo buuxiyo candle noocan oo kale inuu imaado si kadibna dhaqaaq loo sii galo aragtidan waa aragtida aan haysano markii la fiiriyo 12 bilood waxaan aadi doonaa half of the year ama 6 bilood aan aadi doonaa 6 month markaan aadno si fiican aan isku la fiirino dhaqaaqi hore waa kana haday aan ka soo sheekeynay almost barti uu ka soo kacay iyo imbalance-gii la soo buuxiyay kadib dhaqaaqi labaad meesha uu ka kacay iyo imbalance-gii aan wili la soo buuxinin laga bilaabo candle walba 6 bilood u taagan 6 bilood waxa lagu sii socdo continuation oo buy suuq sii aha علشان بايغو ugu horeeyay ee 6 bilood laha 2023 soo bilowday sidoo kale 2023 bilood dambe 20 iyo maxal afartii inta ugu dambeysay iyo midan hadda July candlekan hadda 6 bilood la sii galay marka meeshan waa focuskeena meesha aan rabno inaan saarno anaga marka waxaan u dhaxeynaa candleki 6 bilood ee la soo dhaafay ranjigiisa highgiisa iyo lowgiisa u dhaxeynaa symbol candlekan ranjigiisa ku dhex jirnaa oo lagu soo hoos almost wuxuu eegyahay inuu sii jabsan karo way dhici kartaa inuu ku soo hoos xirmi karana way dhici kartaa laakiin waxaan ku sii falanqeyn doonaa low time frame ka 3 bilood ee kan ka yar meeshan marka aragti waxa nooga muuqata hadii candleka uu si xooli ah momentum leh ama badi leh uu ku kor xirmo waxaan rajaynaynaa continuation oo suuqa inuu buy sii aadi karo waxaan ka wadaa markii candleka saan uu xirmo qaab noocan ah green uu ahaa Soomaan green kan ka dhigaynaa si hadhow aan isku la fahmo haduu candleka qaabkan ku xirmo continuation aan filanayna oo ah in suuqa uu sii socon karo laakiin hadii ranjigan hadda lagu dhex jiro uu soo galo waxa qasab ah lowgan inuu soo qaado uu dib u soo laabto inta inuu soo qaado okay lowgan marka waa meeshii maxaa la yiraahdaa candleka hadda furmo waa buy waa openkiisa inta waaye lowga meeshii ugu hooseyso uu gaarana inta waaye meeshii ugu sareyso uu gaarana 111 ay ahayd I think so intaas inay clear tahay 111 gaas marka hadda meesha anaga aan rabno waa price kan meesha uu noo yaalo waa last 6 months hadda noo furmo lowgiisa waa
lowgaas marka wuxuu noo noqon karaa liquidity price ahaan wuxuu ku beegan yahay 75581.94 hayga noogu dambeeyana waa midkan hadda la qaaday all time hayga hadda la jibiyay 110,000 ahaa waxaa la gaaray 111,000 iyo jajabaa la gaaray all time hayga clear markaasaan conceptigan haysato waxaa u baahan tahay haddana 3 bilood inaad fiirisid 3 month aan tegaynaa kadib aragti waxaan rabnaa inaan fahanno suuqa continuation muu ku sii socon doonaa ma sii socon doonaa mise wuu soo kala wareegi doonaa inaad conceptigaas maskaxdaada ku haysid mar walba waa muhiim okay suuqan dhaqaaqa buyga laga imaado nasashadan oo tii sanadka idin soo tusaaye laga soo bilaabo ilaa up to now suuqa wuxuu soo ahaa buy soo ahaa from here to here suuqa wuxuu soo ahaa buy inta markii imbalancegan uu kacay impulsive kadib correction la helay correction kan imbalancegan uu soo buuxiyay ama fair value gaps u taqaano kadibna suuqa continuation uu iska galay ilaa break of structure kan la helo break of structure kan waxa ka dambeeya new break of structure kale waa kana marka hadda isticmaaleena midkan waa iska kansaleena maskaxda fur imbalancegan inta ka kacay break of structure kiisa intuu jibiyay waa kana meeshaan uu jibiyay candlekan meesha uu dambeeyay waaye break of structure kan uu noqonaa hadda boss kii hore haddaan ku tuso si clear lane-ka la doortaa si aad u aragtid waa aragtaa soo maahan resistance ahead resistance time to support waa la jibiyay waa la soo laabtay haddaa fiirisid laabashadii cirifyada candlekan waaye laakiin lane-ka haddaa fiirisid lama soo laaban okay area lagu soo laabtay imbalance la soo buuxiyay ku jira ama fair value gap si fiican u fiiri oo qurux badan impulsive ha dhacay retracement kadib impulsive kale haddana imbalancegan mid la mid ah sidii sanadkii mid hore aan u soo aragnay 3 biloodlaha mid kale ku jira si fiican u fiiri imbalancegi 3 bilood ee bartaan noo yaalo isagana waxaan fiirin doonaa haygan waa hayga almost la soo qaaday waa la jibin karaa haddii la rabo laakiin mar walba waxaa la fiiriyaa hayadii ugu dambeeyay kan dhal walbo inta kaaga muuqanayo waa 3 biloodle Q1 I think so Q4 ki ugu dambeeyay sanadka waa karaa uu ahaa 4 bilood 3 bilood ee sanadka ugu dambeysay waa kana October November December sidoo kale kanna waa Q1 ki sanadka 2025 Janaayo February Mars kanu ahaa kanna wuxuu ahaa April iyo May iyo June waa kan dalkan hadda dhamaan rabo almost wuuba dhamaadaba June hadda si bilowd April iyo May iyo June waa ku dhex jirnaa bishaan uu dhamaana haddii bishaan labada maanta inoo maraysa ee dhamaato uu ku kor xirmo kan dalkan ilaan open intuu ka soo furmay meeshaan uu ka soo furmay wuxuu sameeyay open markuu sameeyay 3 bilood ee ka hooseysay calaashan ka horeysay January iyo February iyo March lowgeedu soo qaaday mujida lowgi markuu soo qaaday open low uu sameeyay kadibna high uu sameeyay high maxaa waay high uu sareeyay ee 3 bilood ee la soo dhaafay uu soo qaaday kadib meelahan uu maraya xiritaankiisa sidoo ku xirmi karaa inuu soo laabto oo ranjigan meeshan hay'ada ugu dambeeyay inuu ku soo laabto uu bartaas ku xirmana way dhici kartaa inuu uusan ku xirmin uu sii dhaafana uu kor ku xirmana way dhici kartaa marka waxaan sugeynaa aragti ahaan maadaama hadda aan sii socono waxaan fiirinaynaa imbalancegan inta ka dhacay impulsive kan inta ka kacay waa la soo laabtay almost soo laabashadan impulsive kan 50% haddii la imaaday waxaa ku ogaan kartaa v retracement-ga hayga uu sareeyay iyo lowga uu sareeyay waxaa arki kartaa 0.5 waa 50% gaaga oo impulsive kan hadda inta ka dhacay ama ranjigan ranji low iyo ranji haygan hayga uu sareeyay iyo lowga uga hooseeyay dhexdooda 50% ga hoos waxaa ka jiray imbalance sidoo kale waxaa yaalay break of structure aad u qurux badan break of structure ka markii la sameeyay marka meeshan waxaa la soo buuxiyay imbalance 3 bilood la I think so meeshan ka soo raaca waay haddii Twitter-kayga dib u raacdid oo aad soo fiirisid meesha aan kala socdo BTC waagi aan analyze gareynayo aan dhahayay 74 meelahaas 2 bilood markii la gaaray inta haday ii soo gasho buy aan ahay waa qaadanaya daraadna 110 markii gaartay waa ka degay haddii dib loo raadiyo maybe in la heli karo ay ila muuqataa let me show you si clearly si aad u aragto BTC April 7 aan soo dhigay almost ana fiiri meesha ay taagneed meesha hadda aan ku analyze gareynayo VIP-kana meesha uu yaala fiiri low iyo high 50% ga laga soo hoos maray imbalance-ga waa kana la soo buuxiyay break of structure-ka cusbaana waa kaasa and then bartaasan ka qaatay oo buy aan ka galay ilaa ay waxaan target gareynayay high-gan ugu dambeeyay ilaa email-haasna waa rajeynaa in la gaari karo 124,000 inay imaan karto marka buy-gan marka inta ka galay almost hadda maxay sameysay marka marxaladda hadda ay ku sugan tahay
anagana xukmiyo mar walba analyze-kaaga nooc walba u samey laakiin mar walba waxaa qurux badan waxaaga inay iskugu kaa xiran yihiin okay area-da aan kasoo sugayno marka waa kana bartii aan ka galnay imbalance-ga aan soo cabir meelahan uu ahaa maybe kan inuu ahaan jeclahay kadibna waa la soo laabtay area-da markii la imaaday yes kan waay haa markii la soo laabtay waa la kacay dhaqaaqiga socdo marka dhaqaaqan kan dhalkan bayga ah suu ku xirma in meeqa maalina dhiman inuu xirmo kan dhalkan hadda furmay 28 cishi 13 maalina dhiman marka waxaan fiirinaynaa hadda marka analyze-kaaga waxaa lagu base gareynaa meesha jihada macquulka ah in la imaado intee waay probability-ga waa meeshan area-dan marka zone-kan zone macquul ah la imaan kara waay future plan marka waxaan sii aadaynaa anagoo lowgan hadda waxaan loo qaaday lowgii 3 bilood ee la soo dhaafay hayg 3 biloodna waa la qaaday waxaan ku dhex jirnaa marka kan dhalkan baygiis ma sii buush gareyn doonaa maalmaha hadda soo socdo oo ma la sii jibin doonaa bartan week ma lagu imaan doonaa calaashan kan dhalkan inta ka furmay meeshan inta ka furmay let me try clear inaan kaaga dhigo kadibna kan noogu ekeysi okay kan dhalkan inta hadda nooga furan noo soo qaad kan noo la cabir meelahan ka dhig kan dhalkan hadda intuu maraya meeshan uu ka furmo soo maaha ma laga yaabaa bartan inuu jabsado markuu bartan tago week inuu inta ku soo taabto weegan markuu inta ku soo taabto I think so weegan markuu inta soo taabto kadib ranjiga inuu dib ugu soo laabto meelahan uu ku xirmo maybe way dhici kartaa maybe not inuu bartaas ku xirmo close above la helo haddii marba all time high cusub la helana nasasha la sugaya haddana kadibna continuation qaab noocaas aragtidaada inaad ku base galaysid hadda marka waxaa haysataa 3 bilood leh oo lowgiisa lagu qaaday 3 bilood ee sanadka la soo dhaafay meel imbalance lagu joogo hayga kalena waa la qaaday marka adi waxaa taagan tahay laba hayga u dhaxaysa haygan 3 bilood oo hadda cusub ah iyo haygan oo hadda almost isagana meel sweep uu ku soo sameeyay midkan hadda noo calaamaysan colorkan red-ka red aan ka dhigaynaa si aad u fahantid iyo haygan oo la soo cunay haygan oo isagana la soo cunay red nooga dhig kan marka targetka loo socdo maadaama uu yahay green ka dhig barwaaqan rajaynaynaa kadib waxaan aadaynaa almost haygan ugu dambeeyay kan waaye red-kan kana ka sii koray hayga ugu dambeeyay waaye hadda kan marka wuxuu noqon karaa maadaama hayadii ka horeeyay isaga uu soo cunay liquidity cusub uu noqon doonaa okay meelo lacaga badan ay yaalaan waa hadda liquidity-da markii la fiiriyo okay waxaan fiirinaynaa marka 1 month intaan fiirinin 2 bilood laha marxalad noocee lagu sugan yahay same scenario 2 bilood hadaa fiirisid waa kana meesha baygu uu ka soo baxay bartii aan ka soo galnay iyo marxaladda kan dhalada hadda noo socdo inta hadaa fiirisaan 2 bilood waay chartiga si fiican u fiiri waa 2 month area-dan almost 2 month imbalance la soo buuxiyay high target-ka ah waa la soo qaaday laakiin -7ki wili lama gaarin okay 1 month hadana aan fiirino halka bil markaan fiirin kadib meeshan waxay u muuqataa almost bishan inay dhamaatay bishan waxay ku dhamaatay marka waxay ku dhamaatay in haygan week lagu qaado ranjiga lagu soo bixiro kan wuxuu noqonayaa marka sweep liquidity Allah waa la soo qaaday last high kuugu dambeeyay marka haygan waay okay loogu kuugu dambeeyana waa kana labadan area marka liquidity ay yaalo okay bishan marka hadda noo dhalatay June waxay u dhaxaysaa bishii la soo dhaafayay hoos ka fiiri meeshaan aan wax ku sawirayo hoosteeda si fiican u fiiri haddaan dul istaago May ranjigeeda lagu dhashay June waxay ku dhalatay ranjiga May marka waxaa dhici karta laba qaab in kor loo qaado kan dhalkan hadda furmaayo oo maanta 2 maalin laga joogo hadda furmay in haygan uu soo qaado hadduu haygan soo qaado shaki ma lahan targetkaas waa la gaaraa haddii uu ku fashilmo haygan inuu qaado lowgan waa la soo qaadaya isagana marka liquidity meeqa u dhaxaysa adi marka maskaxda geli 110 iyo waxa u dhaxaysa 11 all time high ugu dambeeyay iyo waxa u dhaxaysa 93 area-dan marka imbalance ku jira hadaa arki kartid imbalance-gan meesha ku jiro markii low time frame aan u degno asi fiican oo clear u arki doontaa break of structure kan intuu ka dhacay last candle-ka ugu dambeeyay marka haddii qaybta usha aan fiirin oo kale qaab noocan haddii ay dhacdo oo la jibiyo meeshan zone-kan maxaa waay markii hore resistance noo ahayd soo maahan haddii markii la jabsada aa aragtid maxaa ka sugay oo ka filay resistance time to support waxa la dhaho okay resistance time to support inay noqoto oo lagu soo laabto area-dan zone-kana marka waxaan fiirinaynaa qaab noocan ma loo jibiyay masuuli waan leenkan furanaynaa waa xaqiijinaynaa area-dan waxaa fiirisaa marka
almost meeshan maxaa kaaga dhacay haygii waa la jibiyey ugu dambeeyey soo maahan fiirso hayga waa lagu jibiyey haddii la jibiyey soo laabasha soo socoto mujeedaa in la soo retest gareeyay areadan haddii marka haygii la jibiyey oo kan lagu soo laabto zonekan suuqu muxuu sameynayaa low high higher low higher high higher low cusub in la helo okay ama new supportkan in la imaado new support ay samaysato kadibna resistance-gan inta looga soo tagay dib loo attack gareeyay anaga resistance-ga laga soo taga marka waa kuwan waa all time high ugu dambeeyay 111 iyo all time high kale anaga aan sugayno mustaqbalka in la gaaro oo ah 126 saan haddii ay samayso marka hadhow nasasha soo galay areadan ama areadan ay soo attack gareynay liquidity ahaan qaabkaas waa qaabka market structure technically mechanically uu isku sameeyo oo u dhismo suuqa marka qaabkaas la rabaa inaad u fikirtid hadda marka hadii lagu weydiiyo intee ku jirtaa lagu dhaho waxa dhihi kartaa aniga waxaan u dhaxeeyaa bishii la soo dhaafay ranjiga waxa la candlekan halkan bil waay ranjigeeda u dhaxeeya marka everything can happen areadan marka inter hadii laga raadinayo waxa fursad laga dhex baartaa inta u dhaxeyso weegana la cabirtaa 50% intee ku beegan tahay areadan okay weegana marka inter laga raadina areadan marka hadii la rabo hala taga lagu soo laabto meesha lacagaha badan ee yaalaan liquidity-ga inta waay meesha kalena intee waay zone-kan waay maadaama inta loogu ugu dambeeyana la qaaday hay'adda ugu dambeeyana la qaaday rangin in la galaa macquul ah rangin waxa la lahaa suuqa inuu kor iyo hoos meel uu aadi waay saas ula socdo I think socodkay clear waay waa in maqashaan si qurux badan ay maqashaan Soomaan dhalinyarada nala joogto okay hadana maqashaan that's good inta kalena waxaan rajeynayaa inay insha Allah ay na maqli doonaan waxaan u degi doonaa marka maadaama bisha ay tahay 4 week 2 week aan fiirinayno 2 weeks maxaa ka socda labada isbuuc marka aan isla fiirino focus garee waxaan kuu soo sheegaa meesha laga soo laabto fiiri ranjiga hadda week aniga aan soo calaamaysanayna haygiisa iyo lowgiisa 150 laga soo laabtay hoos maxaa yaala marka imbalance-gan ku yaalo wuxuu ku muujinaa labada week ee hadda lagu jiro meesha lagu wajahan yahay la imaan karo maadaama haygu u dambeeyay week lagu qaaday week hadii lagu qaaday and then what are we expecting suuqa maxaa ka rajaynaynaa anaga inaan ogaano hadii aan nahay traders weekly ah ama swing traders nooc walba ay tahay marka dhaqaaqan inta ka bilowday intuu ka soo bilowdo buy inta swing low swing high Allah hadaa cabirato vip-ka aad soo qaadato aad dhahdo swing low ilaa swing high inta ku beegan tahay areadan suuqa area sarow jooga soo maahan 50% intay ku beegan tahay meesha noo calaameysneed hadaa xasuusataan marka labada meel oo suuqa la keeni karo intee waay hadaa waa idin sheegay haduu soo dhaco laba meel uu imaan kara suuqa hadii bartaan laga ixtiraamo break of structure-ki aan sheegayno meeshan oo aan ka soo arkeyno maanta liga hadaa leen fiirisid waa kana break of structure-ki la sameeyay soo laabasha soo socoto okay suuqa markii hore buy aha kadib correction uu galay wuu raftay hoos uu aaday hay'ga ugu dambeeyay la jibiyay retest marka meeshan resistance ahead resistance tan support-ka loo soo socdaa Soomaan support-ka marka intuu ku beegan yahay area imbalance ku jiro imbalance kana Allah imbalance-gan meesha ku jiro fair value gap u naqaana anaga especially waxa la break away fair value gap dabeecadaha break away fair value gap ka lagu yaqaan waxa kamid ah in isagoona high soo qaadin aan lagu soo laabanin high miyuu soo qaado markii hore liquidity soo sweep garay markuu liquidity soo qaatay oo meeshan wixii lacag yaala dhan la soo cunay dib hadan loo soo laaban intee loo soo laabana zone-kan waxa loo yaqaana marka break away fair value gap hadaa si kale u fiiriso isla zone-kii uu ku beegan yahay waa aragtaa Soomaan oo meeshii resistance-ga ay ku beegan yahay marka resistance time support in inta la imaado waa macquul adi marka analyze-ka qaabkana u diyaarsanaysa oo waxa leedahay areadan candle-ka haduu soo dhaco maadaama bisha ranjigeeda aan ku jirno ranji high iyo ranji low bisha aan nahay oo labadan ranji aan u dhaxayno especially first week ranjigeeda hadan ku sii dhex jirnaa waa kana first week ka horeeyay ee bisha soo dhamaatay May week ugu dambeeyay ranjigeeda lagama dhax bixin ina qaabkaas u fikiri kartid wali maqla Soomaa codkayga nadiif waay qaab noocaas ina u fikiri kartid aad dhihi kartid yes areada ani probability-ga ah areadan waay oo suuqa in la keeni karo macquul ay tahay zone-kana marka qaabkan u calaameysane kan iska tir marka waxa leedahay marka hadana aragti ahaan labada week ugu dambeeyay bisha May soo dhamaatay iyo week-gan cusub ee hadda socdo haygiisa aawe waa kana
haygana mar labaad calaamaysanay color waxaa ka dhiganay adig kuu gaar ah ku garanaysid weegan noocu doona ku ahaado adi analyze garayso iska tirtirkan waa soo ogaanay almost sidoo kale lowgiisana waxaa ka dhigataa color adig kuu calaame oo macnaheedu yahay ama magaca ku qoran kartaa waxaa dhihi kartaa okay waxaa dhihi kartaa previous weekly previous 2 week waa laba week waa ma ogtaa previous 2 week high okay kadibna right qaybtan geesu ku taga kana sidoo kale waxaa leedahay previous week 2 low symbol adi inta u dhaxaysa marka almost conceptigaaga uu cad yahay waxa u dhaxaysa labadan leen cascas waa labadii week ee ugu dambeysay ee bishii la soo dhaafay may ranjigeedan ku dhex jirnaa okay labada week ee ugu horeysay isbuucan waa kana candle-ka hadda noo dhasho haddii marka meeshaan hal week aan ugu degno hoos aan u dhaadhacno waxaan fiirinaynaa hadda marka inteen ku dhex jirnaa labada week waa kuwan 1 iyo 2 maadaama laba week aan ka soo baxnay mujeedaa 1 iyo 2 marka anaga waxaa noo calaamaysan weegiyadan areadan fiiri marka ranjigan aan ku dhex jirnaa ranjigan still maxaana daba socdo liquidity inta yaalay ee la soo cuno haygiisa kadibna weega lagu soo cuno Soomaan ha still waxaan haysanaa previous weekly low maxaa lahaa weegi hadda soo dhamaanaya la soo dhaafay haygiisa iyo lowgiisa intaan ku dhex jirnaa labada weega soo dhamaatay anaga marka labadan weega ilaalinayna hadda aragtidaada fikirkaaga qaabka suuqa uu u socdo intee kula tahay BTC isbuucan soo socdo way aadi kartaa waxaa hadda noo muuqata candle sell inuu socdo candle-kan sell-ka intuu ku wajahan yahay weegi la soo dhaafayay 26 May inuu ku wajahan yahay oo lowgiisa uu soo qaaday hadduu soo qaado almost BTC meeqa imaana fiiri qoraalka madowga fiiri 102,000 even haddii lowgan la soo qaado 99,000 la imaan karaa haddii la imaado maxaa loo imaaday imbalance-gii 1 month-ga nooga calaamaysan 2 month-ga noo imaaday markaas waxaa laga yaabaa inay bartaas dib ugu laabato ee all time high-ga dib u soo qaado ugu dambeeyay marka weegan waxaa aragnaa inuu yahay week bearish ku bilowday marka qaab noocaas aragtidaada inaad iskugu xirtid aaday u qurux badan tahay marka analyze sameynaysid haddana waxaa samaysan kartaa isla leenkan waxaa dhihi kartaa previous weekly low kan waxaa la lahaa previous weekly high symbol kan wuxuu ku noqonayaa previous weekly low warkaba uu ku cad yahay adoon iswareerinin qoraalo badan sameynin wax badan aan calaamaynin qaabka u samayso kadib areadan imbalance ku yaalo waa isla haynaa waa monthly fair value gap symbol monthly imbalance monthly fair value gap it's up to you adi marka maxaa u dhaxaysa ranjiga bishii la soo dhaafay ranji high ranji low ay ku dhex jirtaa still ranji kale weyn uu ka sii hooseeya waa u jeedaa Soomaan everything can happen marka adin newskaaga akhriso warbixintaada akhriso isku dardarso suuqa intee loo soo wadaa fiiri meeshan waxaa ka muuqata hadana wax la dhaho W pattern ka qaabkan uu dhismaa W waa isla naqaanaa qaab noocaan uu samaysan yahay W-ga lowga ugu dambeeyay soo qaadaya kadibna high-ga uu qaadaya hadduu saan noqdo W laba waay meeshan neckline ay noqotaa sababtoo waxaa lagu xushaa W-da marka koowaad waxay qaadaa liquidity way soo qaaday haday soo qaado kadib high-ga ugu dambeeyay waxaa la break of structure ama neckline sidoo kale expanded la qaybtan expanded leg hadii la qaado marka saddex leen haysata ee lagu soo laaban karo hadii ay soo laabato waxay ku soo laaban kartaa lugtan oo 30% ama lugtan 50% ama lugtan oo OTE la dhaho 75% areadaas ku beegan hadii marka areadan lagu soo laabto markaas dhaqaaq kala weyn inuu dhaco waa macquul marka aan isla fiirino lugtan hadda inta noogu muuqata leen ahaan aan u saarno areadan kan W-ga hadda aan ku sheegayo waa kana haygiisa lowgiisa ugu dambeeyay neckline-ki lowgi la qaaday haygiisa waa kaasa meeqa sheeya banaan marka hadda in inta laga laabto macquul waayo suuqa kor ka aado koow aragtida koowaad waayo aragtida labaad in suuqa inta uu imaado 50% uu soo dhaxgalo kadibna uu kaco waa aragti kale aragtida saddexaad waxa macquul ah in imbalance-gan uu imaado 70% meelahaas inuu imaado hadii aan ku tuso VIB-ka waxaa la cabirtaa dhaqaaqan bayga la cabirtaa aan ku dhaho swing low meesha ugu hooseyso iyo swing high meesha ugu sareyso hadaa cabirto fiiri marka 50% leenkana noo saaran 100% golden zone la areadan imbalance ku jiro waa kana 70% marka probability-ga soo laabashadan dhaqaaqan bayga kacay nasashada inta may ku dhamaan rabtaa 30% may ku dhamaanay
boqolkiiba 50 may ku dhamaanay mise boqolkiiba 60 ama boqolkiiba 70 meesha ku dhamaanaysa marka area imbalance uu ku jiraa la fiiriyaa haddii neckline-ka marka meeshan breakout ay tahay inta badan waxaa la keenaa meeshaan la keenaa aan isla fiirino line aan ka dhigno w-da aan kuu sheegayo waa kana lowgii la qaado waa kana neckline-kina waa kana marka soo laabashada probability-gu wuu cad yahay DCA samay good for you laakiin do your own analyze technicalka naftirkiisa muhiim waa inaad fahansantahay okay do your own research analyze-ka qaabkaas iskugu xiro I think so waxaan rajeynaa inta inay clear tahay waxaan u degi doonaa daily waxaan rabnaa inuu noo waafaqo aragtida suuqan anaga aan ka haysano maadaama week uu yahay 7 cisho waxaan fiirin doonaa 3 bari 3 days okay 3 bari maxaa meeshan ku haysaa hadana focus garee vipkan iska tir vipkan meesha noo yaala iska tirno no focus garee areadan maxaa ku haysataa fiiri ma waa 3 maalin halkii kan dhal 3 maalin uu ka kooban yahay kan hadda wuxuu ka kooban yahay 3 maalin saas wala soo areadan waxaa aragtaa swing kan dhalisaa la 3dan kan dhal 1 2 3 way kala sareeyaan ama head and shoulder saa u taqaanid haddii leen laga dhigo qaab noocaas u sameysma low time frame ka haddii aan la aadno laakiin qaabkan waa swing kan dhalis waxaa la 1 iyo 2 iyo 3 inay week ku kala dheerayeen kan koowaad high lagu qaado kan labaadna uusan qaadin kan koowaad SMT-ga meeshan ka dhacay anyway sharaxaad dadka basic ay fahmi karaan ma ahan waa more advanced explanation u baahan waxaas ka gudub marka aan isla fiirin areadan maxaa aragtaa almost last candle ugu dambeeyay bayga ahaa waa kana haygiisa la qaaday maxaa lagu qaaday fiiri wiiga lagu qaaday maskaxda furiya wiiga lagu qaaday haddii wiig lagu qaaday maxaa filan lowgiisa aawe lowgiisa waa kana candle kan dheer leh fiiri lowgiisa waa kana isaga kan maadaama haygi la qaaday swing haygi la soo qaaday previous weekly haygi ugu dambeeyay almost meeshan kan hadda noo calaamaysan waa areadan maxaa ka soo muuqda marka in la soo attack gareeyo candlekan lowgiisa weli ma la imaado may 3 maalin furan kan 3 maalin furan haddii aan ku dago one day aan ku tago meeshan selka ka soo dhacay sel nadiif ah oo saxan oo nadiif ah waa si fiican aan u fahmay fiiri okay si fiican aan u fiirin marka areadan si fiican u fiiriyo engulfing bearish engulfing la candledan inta kaaga muuqdo candleka ugu dambeeya fiiri candleka ku xiga awoodiisa fiiri ani marka waxaan dhahaa order block waa last candle before down move kan intuusan soo dhicin last candle up move ugu dambeeyay selka intuusan soo dhicin 50% giisa lagu laabtay swing waxaa la qaaday swing high-gan meesha ugu dambeeyay haddii lagu qaado sell bartaan ka soo dhacay selki soo dhacaya ilaa hadda soo socdo haddii laabasho ee dhacday intee lagu soo laaban karaa areadan 106 inta u dambeyso ilaa iyo 107 liquidity-da lagu sheegayo waa marka areadan liquidity badana taalo haddii bartaan loo la qaado liquidity-gana la imaana ilaa 109 meelahan in la soo galo haddii 109 la imaado hadana diba waxaa loo soo attack gareena 103 102 100 jajab qaabkaas waa qaabka technicalka la iskugu xiro qaabka suuqa uu shaqeeyo I think so waxaan rajeynayaa clear inay tahay intaan wax badan ka fahanteen jihada suuqana ah haysan inta waa isla fahanay Soomaan